Amaal waxay dhawaan ka timid waddanka Maraykanka, halkaas oo qoyskeedu ay degan yihiin. Waxay dalka joogtaa maalmo kooban. Maanta waxay rabtaa inay soo booqato saaxiibteed Faiza, oo ay isku fasal ahaayeen waqtigii iskuulka. Balse hadda Faiza waa xaas oo waxay leedahay reer, iyadoo rajaynaysa in dhawaan ay noqoto hooyo. Dhinaca kale, Amaal way ogtahay xaalka Faiza, balse iyada hawsha ay u socoto ma ahan oo keliya inay salaam ugu tagayso saaxiibteed, ee waxa kale oo ay wadataa qorshe. Bal aan aragno waxa dhaca. Hadda waxay ka soo baxday xaafadeeda, iyadoo qabatay ama u socota dhanka iyo xaafadda Faiza, waxaana ay soo raacday bajaaj. Faiza dhinaceeda waxay hagaajin ku haysaa qolkeeda maadaama ay saaxiibteed u soo socoto, waxaana ay xaajigeeda u sheegaysaa inay imaanayso saaxiibteedii isku fasalka ay ahaayeen. Xaaji maanta waxay soo socotay gabar isku fasal ahayn, yaraanteen isku iskuul ahayn, maanta Yurub ay ka imaatay way soo socotaa maanta. Wah, iyadoo Yurub aadimay wadani Soomaaliya soo laabatay erata. Maxaa qof dadkeeda jecel waa maxay umaaweys. Wala dad waxaa jiro oo nasaba dadkooda. Cabbaas oo warka meesha marinaya waxaa mar qura la maqlay dhawaqa garaaca albaabka, waxaana garaacaysay Amaal. Faiza ayaa dhahday. Faiza waxay soo aaday dhanka iyo albaabka iyadoo ka furtay, dabeeta waxaa bilaabatay ismarxabayn iyo isku dhag maadaama ay ahaayeen saaxiibo muddo kala maqnaa. Kadibna Amaal waxaa la soo fariisay halkii la diyaariyey, waxaana hadalka bilowday markan Faiza oo doonaysa in saaxiibteed Amaal iyo xaajigeeda Cabbaas isbarto. Qofkan waa xaajigeeda iska baro, adna waa saaxiibadeeda qaaliga yaraanteen dib iyo dheefaas soo qaadanay marka. Dumaashi soo dhaw anaga waxa iska nahay qorax joog, adigana waxa iska tahay qurbo joog. Marka soo dhaw dumaashi. Cabbaas barasho la mid ah buu wallahi dalkeena qalaas yar ka taagan. Waxaan Ilaahay ugu baryayaa inuu dhibka Allah ka qaado. Insha Allah, amiin abaa. Maxaa ii ka dambeeyay horta aniga waa guursaday, adiga laakiin ma guursatay. Maxaa ii ka dambeeyay? Ma saaxiibay aniga wali afaaraas isku maan. Adiga waa iga fiican tahay nolosha. Hadda waxaa dhamaatay isbarashadii, waxaana Faiza ay u baxaysaa inay cabitaan u keento saaxiibteed. Waxaa isku soo haray Amaal iyo Cabbaas. Amaal waxay bilowday inay fiiriso Cabbaas oo aynan marnaba indhaha ka leexin. Cabbaas oo arkay sida gabadha ay u fiirinayso ayaa dareemay xishood, waxaana uu bilaabay inuu jeesjeesto. Amaal daymo oo keliya uguma ekayn Cabbaas, markan waxay bilowday hadal iyadoo ku leh. Cabbaas xaqiiqadii aad iyo aad ay u qurux badan tahay wallahi. Farmiga dhaaftoday waxaan qurux ma ayaa dumaashi. Inta markii hadalka afkeedu uu ka sii dhamaanayay, waxaa qolka soo gashay Faiza oo wada cabitaankii ay doontay. Waxaa bilaabmay in cabitaankii la wada shubto oo la cabo. Sheeko caadi ah ayaana la bilaabay. In cabbaara markii ay socotay sheekada, Cabbaas oo dareensan labadan saaxiib inay sheeko dheer leeyihiin ayaa ka soo baxay qolka, waxaana u aaday dibadda. Waxaa isu soo haray Amaal iyo Faiza. In muddo ah ayaa sheeko iyo qosol ay u socotay. Amaal oo dareentay in xilli dambe la gaaray ayaa saaxiibteed Faiza ku tiri. Faiza abaayo xilli dambe ayaa la gaaray habeen waaye, haddana waa sii baxayaa. Kaliyan bixis Cabbaas ku dhaweyn, Cabbaas ku wacaaya. Okay. Hello. Jee aadineen. Faiza oo ka wareysay maalmahan in xaafadda dhacdooyin aan wanaagsanayn ay ka dhacayeen ayaa saaxiibteed ugu jawaabtay. Waa sheekaysteen awleena. Waa sheekaysanay. Kulay hadda waa sii baxayaa. Insha Allah in badan wadanka maalmahan waa sii joogayaa. Cabbaas waa uu ogolaaday in dumaashi uu u kaxeeyo xaafadeeda maadaama saaxiibtii Faiza
ay ku wargelisay. Faa'iisa iyadu wax dhiba uma aragto inay isku darto Amaal iyo Cabbaas oo ay iswada raacaan si xaafadda loo geeyo Amaal maadaama saaxiibteed ay tahay wax shaki ana kama qabto in waxyaabo kale ay dhici karaan balse waxa dhacaan aragno. Hadda Cabbaas iyo Amaal waxay u soo baxeen dibadda iyagoo wada raacaya markan mooto bajaaj si xaafadda Amaal loo aado. Intii mootadu ay socotay waxa dhex martay Amaal iyo Cabbaas sheeko inteeda ugu badan iska kaftan ahayd iyo qosol. Waxa la soo gaaray xaafaddii Amaal. Waxa la istaajiyay bajaajtii. Amaal ayaa soo degtay waana uu fasaxay isagoo dib ugu soo laabtay Amaal. Waxa wada taagan Amaal iyo Cabbaas. Sheekadan ayaana dhex martay. dumasha ay dhihin Cabbaas waxaan u baahanahay inaan arinku sheego. maxaa arinta run ahaantii horta aniga waa ka helay Cabbaas. waxaan u baahanahay qof aniga ku jecel ka helaa ninka raggana 4 ayuu Ilaahay u baneeyay. waxaan rabaa aniga baasaboor haystaa inaan Yurub ku geesto inta Soomaali joogto aan ku biisho ninka raggana 4 ayuu Ilaahay u baneeyay. arrintaasna waa inaan saaxiibadaada inay xaaskayga taa ogtay okay ani dumasha ay dhihin horta hore qof Cabbaas wiish ayaa ku yeeray maadaama hadalladii ugu dambeeyay ee la dhahay ahayd ka fakar nolol qurux badan ayaan ku siinayaa Mareykanka ayaan ku geynayaa fursad kale oo weyn ayaan ku hayaa. arrintaas ka soo fikir aniga qof lacag la ayaa ahay faa'iiso waa shiid waxa u baahanahay in oo arrintaas mar waliba aad soo fikirtaa qof hanti la ayaa ahay noloshaadan qof qaabili karta ayaa ahay ka soo fikir arrintaas. sidoo kale waxaa maskaxdiisa ka guuxaya jacaylka weyn ee uu qabo xaaskiisa hadda xaamilada ah ee Faa'iisa. xaalka ayaa laba ku noqday waxaana uu bilaabay dhaban hays iyo fakar. inta ay noo joogto daawadayaal qaybta koobaad ee sheekada Khiyaano Dumar waa sheeko xasaasi ah waana qiso dhaba oo dhacday oo aan filimkan kaga turjumayno. haddaba daawade haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar sii share garee muuqaalkan oo la wadaag asxaabtaada like noo saar si uu saaxiibo badan u gaaro. waad ku mahadsan tahay daawashada. la soco qaybta labaad ee sheekada. tan iyo muuqaalka xiga ee qaybta labaad ee sheekada waa bahda sheekada Khiyaano Dumar oo idin leh isma dhaafno. waxaan ka helay isbitaalka Soomaaliya anigoo Faa'iiso riyaal iyo naxariis joogto ah. waxaan ku xiranahay qaybta la socodka hooyada uurka leh oo aan ka qaatay kaarka caymiska. waxaan dhihi karaa adeega caymiska hooyada uurka leh waa mid anfacaya hooyo kasta oo uur leh in ay iska diiwaan geliso. waa sida ay idin sheegayso hooyo kasta oo uur leh ay siiyay awlaad ku jirta uurka adeegan caymiska oo ay ku helayaan daryeel dhameystiran hooyada iyo cunuga uur ku jira ah labadaba. wixii faahfaahinaya intaas dheeriya kala xiriir ama eber 6 hal 7 69 99 29.